بسم الله الرحمن الرحيم وعن oo wanaagsan daawadayaal dhageystayaal meel walba joogtaan iyo si walba oo tabinteena idin soo gaarayso waxaad dhageysanaysaan barnaamijka isha wareysyada oo toos idinkaga imaanaya Beledweyne City. Barnaamijka isha wareysyada waxaa marti inoogu ahaa xilligan mid ka mid ah saraakiisha hogaaminaysa dagaalka macawisleyda iyo dowladda federaalka ay kula jiraan kooxda argixisada al-shabaab oo gobolada dhexe gaar ahaan gobolka Hiiraan. sargaalkan oo lagu magacaabo aadan maxamed ibraahim oo ka mid ahaa amaba qaybta ka ahaa bilowgii dagaalka Hiiraan ka aloosmay bilowyinkii ugu dambeeyay ayaa qadka si toos ah ugu jira asagoo ku sugan iyo Sooman oo ka mid ah deegaanada kooxda argixisada al-shabaab laga xoreeyay. ugu horeyn aadan maxamed ibraahim anagoo kaaga mahadcelinayno waqtigaaga qaaliga ku soo dhaw barnaamijka isha wareysyada ee Beledweyne City. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما سنتين دمانتين بلدوين سيتي iyo wariye Cabdinaasir iyo dhamaan dhageystayaasha Soomaaliyeed ee ku kala sugan dunida dacaladeeda waana dhawahay aad iyo aad u mahadsantiin waxaan ku weydiinayaa sargaal aadan maxamed ibraahim inaad warbixin kooban naga siiso meesha hadda aad joogtid ama aad ku sugan tahay. walaalo anagu hadda waxaan joognaa aaga iyo Sooman ciidamaduna waa ballaaran yihiin meelo kala duwan ay joogaan ciidamada hadda aniga maaragtay aag ahaan laakiin anigu waxaan ku suganahay iyo Sooman maxaad ka haysaa adiga? iyo Sooman walaalo waad la socotaa qoladii cadawga ku ahayd ummadda Soomaaliyeed ee aan ka soo bilownay dagaalkooda bukure ayaan sidii weli u daba joognaa nimankaasaan rabnaa inaan meel walba ay galaan aanu daba tagno idamka ilaahayna waa nagu guuleynayaa dowladda Soomaaliyeedna garabkeena taagan tahay annaguna inaan wax iska celinno diyaaraan u nahay. inta aanan dagaalada iyo xaaladaha meesha aanan gudaha u galin waxaan rabaa inaan ku weydiiyo aadan waxaad ka mid tahay saraakiishii ugu horeysay ee kacdoonkan gobolka Hiiraan looga xoreynayo argixisada al-shabaab ayaad kaalimaha ugu horeeya uga jirtaa. ma noo sheegi kartaa meeshii dagaalkan aad ka soo bilowday? walaalo waxaan ka soo bilownay dagaalka bukure ayaan ka soo bilownay waxa ku soo xigay teedaan waxa ku soo xigay ceel la hele iyo dhulkaan hoose kadib ciidamada waa la kala qaybiyay qaybna koray martay qaybna hoose soo martay anigu waxaan ku jiray marka ragga la socday ama hogaaminta qayb ku lahaa ciidamada kor maray dhanka kore iyo ilaa iyo Moqokori iyo dagaalada kula galay nimankan argagixisada ah dadka Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa kooxdan argagixisada ah inay tahay dad aad iyo aad u liita jilicsan fikirkooduna oo aad u qaldan yahay ayaguna dad jilicsan ay yihiin dadka Soomaaliyeedna hadda inay baraarugsan yihiin arrinkaas ku baraarugsan yihiin waa u maleynayaa. waxaa tahay sargaal muhiim ah oo warbixin badan ama xaaladahan bukure ilaa iyo hadda meeshaad igala hadlayso iyo Sooman u soo joogay dagaalada ka dhacay intaas qaybta ka ahayd waxaadna ka mid tahay saraakiisha macawisleyda ah. waxaan rabnaa inaan ku weydiino doorka dowladda federaalka iyo doorkiina bal sidee wada shaqeyntiina ilaa intay gaarsiisan tahay? walaalo horta wadankan dowladu leeyahay dowladdaas unbaa maaragtay siyaasadeeday wax walba ku socdaan ayadaana kulley hogaaminta doorka hogaamineed ayadaa iskale kuwa badan oo waxaan aragnaa mar walba ka hadla maaragtay macawisley waa qatar soo socota macawisley halkaa ay ka dhaceen dad mas'uuliyad sheeganaya ee Soomaaliyeed ee dad Soomaaliyeed ee raba doorkii dowladnimadu lahayd inta ayagu qaatay rabaan inay dhintaan ay dalka iyo dadka Soomaaliyeed ay u dhintaan haddana inay dhabarkooda ka hadlaan waa ayaga laftirkooda waxay ku tahay mas'uuliyad daro. waxaan isleenahay marka anaga ka macawisley meel walba gobol walba deegaan walba ay Soomaaliya ugu sugan yihiin waa isku hadafkoodu muxuu yahay marka hadafkoodu wuxuu yahay in dalka Soomaaliya loogu soo celsho nabad
aadan kumaana weydiinin hadaf waxaan ku weydiiyey wada shaqaynta adinka iyo dowladda idinka dhexeyso waa heer ilaa intee gaarsiisan tahay waa heer dowr ilaa intee leeg walaalo horaan kuugu sheegay doorka hogaamineed dowladdaas kale shaqadana inaan wax ka qabanno oo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeedna ay garabkeena yihiin intaas ayuu doorkeenu siyaasadeed isku xiran annagu wax siyaasadaba shaqo kuma leeyahay laakiin waxaan ka hadlaynaa si wada shaqaynta idinka dhaxaysa wadankan dowladda oo leeyahay siyaasadeeda ayaan dabagelaynaa cadow iska xureyntana hal qof oo ogolaanaysa ma jirto cadowga yaa la iska xurey waxaa tahay sargaal hogaamiyo ciidan ma noo sheegi kartaa tirada ciidankaad hogaamiso maya taas waa sir ciidan mana la doonayo marnaba in la sheego annagu markaan nahay macawisley aaga aan joogno ilaa iyo aaga maxaaseed ilaa iyo aaga beerxaano dad isku xiran oo iska warqabaan nahay daqiiqad iskula socda laakiin cadadda ciidamada iyo meelahay ku kala joogaan iyo maaragtay caawa meeshii lagu bariyay iyo arrinkaas waa iska arrin ciidanka unbaa ogaa kara loogumana talagelin dhanka warbaahinta way fiicnaa lahayd inaan dadka Soomaaliyeed la wadaagno hase ahaatee waa sir ciidan intaasaan ku leeyahay waa mahadsan barnaamijka halganka aad ka wadaan hiiraan waxaa la sheegay ama warar hordhac ah ay gaar ahaan beledweyne city ay heshay ayaa sheegaya in dagaal aad qayb ka tihiin dadka degan macawisleyda gobolka hiiraan amaba u dhashay beesha gobolka hiiraan inay qayb ka yihiin xoreynta degmada ceelbuur oo xudun u ah kooxda argixisada ah arrinkaasi idinkoo hiiraan sifeenin maxaa idinku kalifi karaa in gobol kale aad u gudubtaan idoo weliba halgankiina hiiraan uu weli qabeeya walaalow hiiraan inteeda badan oo waa xor markii loo fiiriyo deegaamada hadda laga qabsaday iyo deegaamada hadda ay ku harsan yihiin dhankooda badan horta waa laga qabsaday laakiin isla dhanka laga xoreeyay gobolka diriska la ama gobolada diriska la ayay weli ku sii harsan yihiin annagoon dhankaas ka soo wada jeesan on dadka deegaankaas degan ee ku nool aanan la xoreyn oo ku garab siin aaga kale inaan isku taabanno qorsheenu ma aha laakiin waa qorshe kolley dowladuna ay wax ka wado dadka deegaanka iyo dowladuna ay isla qorsheeyeen in qaabkaas dagaalka loo wado si markii aag looga soo dhamaado aaga kale markaa loogu gacan banaano maxaad kala socotaan wararka sheegaya in baabuur qaraxyo ah ay ku jiraan deegaanada muhiimka u ah gobolka hiiraan gaar ahaan beledweyne buule burte wararkaasi maxaad kala socotaan walaalow wararkaas waa la sheegayay kolley laamanka amniga u taalaa maaragtay arrimahaas wayna ka warqabaan ayagaana laga rabaa hadda shaqada magaalada inay qabtaan annagu duurkii baan ku jirnaa meelahaas baan haddii alla ku roon yahay nimankaan meeshay geedkii galaan ba uga hoosgalaynaa uga dabagalaynaa waxaa la sheegayaa in kooxda ay dib idiin soo mareen oo ceeley aad idinka ka dhaqaaqdeen ay dib u qabsadeen oo dib usoo wareegeen oo meeshaad ka baxdeen idinkoo doonaya inaad ceelbuur caawisaan reer ceelbuur inay dib ay kasoo wareegteen maxaa arrinkaasi keeni kara war kooxdan waa koox yaroo liito waay wax hadda meel ay qabsadeenna ma jirto laakiin ciyaal ma soo goosteen ma weerar iyo waxbay rabaan lama yaqaan kolley meela lagu sheegay inay soo socdaan waana loo diyaarsan yahay wejigay la yimaadeenana lagula macaamilayaa ragna waa hor joogaa meel hadda cidla ahoo ayagu ay iska imaanayeenna ma jirto dagaaladii aad hiiraan ka wadeen waa hakadeen maxaa ugu wacan arrinkaas mahaka hadda ayagii yaaba la waayba nimankii meelay aadeen kaala sheeg adig meel noogu sheeg madaxooda lacag jooga laakiin waxaa la sheegayaa deegaano ku teedsan degmada beledweyne gaar ahaan webiga jinkiisa xataa inay degan yihiin ay haystaan marka seed u oran kartaa lama hayo lama arag ma dhanka hoose waa in loo soo gacan banaanaado horaan kugu sheegay waa horta bariga fog iyo koonfurta gobolada nooga xeeran ee hiiraan xuduudda la leh inaan dadka deegaankaas kala sifayno oon xoojino markaan taa ka soo dhammaano xaggaa aan ka walwalbeelna waxaan rabnaa inaan maaragtay ciidan u dirno markaa dhanka hadda ay ku harsan yihiin webiga jinkiisa hadday tahay dhanka galbeedka iyo hadday tahay dhanka bariga intaba waxaan rabnaa inaan
ciidanka jooga markaa inta la xoojiyo laga sifeeyo aagaas. barnaamijka isha wareysiyada qeybihiisa ugu dambeeya ayaan soo gaarnay. waxaan ku weydiinayaa ilaa intee ayaad qoriga aad wadato sii wadan kartaa oo argagixisada al-shabaab aad kusoo afmeeri kartaan maadaama aad tahay sargaal muhiim ah oo macawisleyda? walaalow anagu waxaan nahay dadkii deegaanka aan ku noolnahay iyo deegaamada deriska nala ah inta ay ku sugan yihiin shabaab qoriga ma dhigayno. go-aankeennuna maahan inaan xitaa guryaheennii aniga hadda ku dhowaad 5 bilood ayaan qori sidaa u saarsanaa ilmahaygii ka warqabin gurigaygiina aanan dib ugu noqon. haddana diyaar uma ahi inaan ku laabto maadaama cadow ka daran wax ka daranba ayna jirin aan dagaal kula jirno. qorshaheenna dhammaanteenna waa isku dhaarsanay. argagixisada al-shabaabka oo hiiraan ku sugan miyaad ka hadlaysaa mise guud ahaan al-shabaab gobolladay joogaanba waad kula dagaalamaysaa? gobollada hiiraan markaan ka dhamayno gobollada nagu deriska ahay khatar aan uga jirno ama shacabka reer hiiraan ay khatar ugu jiraan bari iyo galbeed gobollada ku xeeran waxaan ku garab siinaynaa walaalaha degan ayagana waxaan ugu baaqaynaa inay diyaar garoobaan. ma jiraan gobollo maadaama aad sida la sheegay aad inta badan hiiraan aad gacan kuhaynteeda haysaan, ma jiraan gobollo gurmad idin soo weydiistay sida hadda hadalkaaga laga dhansan karo? may walaalo badan oo na soo weydiista way jiraan. walaalo bayskii ka duulaan tageen maaragtay guryaheena ay aheedaa jira. wax ma noo sheegi kartaa walaalahaas? ya walaalahaas idiin soo dirsaday wax ma noogu sheegi kartaa? baaq sooma dirsana de waa dhul Soomaaliya dhulkii Soomaaliyeed yimaadeen wayna ka duuleen halkaas ay ka duuleen marka ciidan aan raacino ku darno. su-aasha ugu dambeyso ayaan ku weydiinayaa aadan maxamed ibraahim haddaad argagixisada al-shabaab ka adkaataan ood ka sifeysaan gobolka hiiraan muxuu noqon karaa mustaqbalkaaga? qoriga aad wadatid iyo dagaalka aad kusoo jirtayna xagee doonaysaa inaad u jihaysato? meelan anigu nabadaan raadinayo meelan ku noolaado oo qoyskayga iyo familkayga iyo dadka walaalaha reer hiiraan ay nabad kula noolaadaan basaan raadinaya. intii haddaan helana alxamdulilah qorigayga waa tiirsanayaa shaqadii ilmahaygana u xirxiranaya insha allah. ma doonaysaan inaad ama ma rabtaan ma danaynaysaan inaad ciidanka qalabka sida ee dowladda dhexe ama dowladda federaalka inaad qayb ka noqotaan? may anigu shakhsiyan maya ma doonaya hadda inaan laakiin waxaan u taaganahay keliya difaaca inaan ku garab siiyo cid kasta oo ama dowlad ka socota ama shacab ah. shakhsiyan aniga wax siyaasadda ma raba inaan galo ama dowlad ha noqoto ama ciidan ha noqoto ma raba inaan galo. waxyaabo badan oo iiga muhiimsan aan rabaa inaan aad u mahadsan tahay oo runtii wareysiga aadna siisan waan kaaga mahad celinaynaa. beledweyne city gaar ahaan barnaamijka isha wareysiyada aad siisay. daawadayaal dhegeystayaal kaasina wuxuu ahaa aadan maxamed ibraahim oo ka mid ah sargaal ama saraakiisha macawisleyda oo furunta hore dagaalka qaybta kasoo noqday amaba dagaaladii hiiraan loogu sifeeyey qaybta kasoo ah isagoo ku sugan deegaanka iyo sooman ee gobolka hiiraan.